dilaa u dhashay dalka Pakistan ayaa kursi iyo dil u geystay 100 caruur ah muddo 18 bil gudahooda. Javid Iqbal oo ah kawaanlaha Lahore, shakhsigan wuxuu ugu talgalay inuu ka oysiyo 100 hooyo. Go'aankiisa ayaan ahaa inuusan ka badinin 100. Javid Iqbal ninka cabsida ku beeray Pakistan 1998 ilaa 1999 waxaa bilaabatay in la waayo wiilal iyo caruur kuwaas oo jiraan 6 sano ilaa 16 sano. Booliiska iyo familka ay ka maqan yihiin caruurta iyo wiilasha ayaa isdhaheen guriga ayay ka carareen caruurta, dib ayayna u soo laaban doonaan. waana wax ku faafay Pakistan caruurta iyo wiilasha inay iska baxaan kadibna dib ay u soo laabtaan. 1999 ayay fariin ka heleen booliiska shakhsi kaasoo leh waxaan kufsaday oo dilay 100 caruur ah, wuxuuna fariinta raacsiiyay dambiyadii foosh xumaa ee uu geystay iyo siduu u dili jiray caruurta ayuu sasaban jiray kadib ayuuna gurigiisa geysan jiray, wuxuuna ku ceejin jiray silsilada caruurta, wuuna kufsan jiray kadib ayuu dili jiray. intaasi kaliya kuma ekeen, wuu jarjari jiray caruurta, wabiga ayuuna ku tuuri jiray. Javid Iqbal maxaa sababay Javid Iqbal inuu sidan u dilo caruurta? waqtiyo kadib wargeysyada Pakistan mid ka mid ah ayaa soo wacay booliiska. wargeyskaas uu u sheegay Javid Iqbal inuu isdhiibi doono. ninkan dilaaga ah aad ayuu u caqli badnaa, waayo wuxuu diidanaa haddii isagoo kaligiis ah uu isku dhiibo booliiska wuxuu ogaa in jirdil iyo tacdiibin loo geysan doono. si aan dhibaato loo gaarsiinin wuxuu qirtay dilalkii iyo dambiyadii uu geystay. Javid Iqbal wuxuu sheegay sababta ku kaliftay arrintan inuu sameeyo, wuxuuna yiri askarta ayaa i qabteen, waxaa lagu eedeeyay kufsi anigoon wax kufsan. intii aan xabsiga ku jirayna waxaa dhimatay hooyaday, waana waxyaabaha keenay in aan ku fakaro in aan dhibaatadan sameeyo. wuxuuna go'aansaday 100 hooyo inuu ka oysiiyo, wuxuuna yiri mana ka badin doono mana ka yareyn doono, xisaabtu waa in aan 100 hooyo ka oysiiyaa. maxkamadda ayaa xukuntay Javid, waxaana lagu xukumay siduu u dilay caruurta in loo dilo, sida in lagu ciijiyo silsilad kadibna loo jarjaro 100 qaybood. maxkamadda ayaa hadalkeeda sii raacsiisay in lagu hordilo waalidiintii uu ka dilay wiilasha iyo caruurta. Oktoobar 9keeda 2001 Iqbal iyo Sajid Ahmed ayaa meedkooda laga helay xabsiga Kotlakhbat. inkastoo ay jiraan calaamado muujinayo in labadooda la dilay, haddana waxaa si rasmi ah loo shaaciyay oo liiska lagu qoray in ay isdileen labadoodaba. halkaasi ayuu ku egtahay qisada gaaban ee Javid Iqbal.